السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا برنامج كله iyo فيديو كله oo caafimaad oo aqoon guud ah waanigo ah Dr. Yusuf fiidiyowgan waxaan kaga hadlayaa cadaadiska ku yimaada neerfaha ka soo bilaama ricidhaha dhabarka hadiya jeer halkan tusaale ahaan oo kale waxaan ku hayaa ricidhihii fiidiyowda caafimaadka ee aan kaga hadlaa waxaan ugu talagalay in ay dadku ka faa'iideystaan si loo fahmo qofka waxyaabaha ay ka cabanayaan marba waxaan soo qaataa toobiyada ama waxyaabaha ugu badan ee nala soo weydiiyo ee had iyo jeer dadka badankooda ay ka cawdaan fiidiyodan waxaan ugu talagalay si aqoon guud ay dadku uga faa'iideystaan mar walba waxaa muhiim ah inaad la xidhiidho dhakhtarkaaga si uu kuu sheebaadho haddaad raajisa u baahan tahay raajisa kuu saaro haddii aad iskaan u baahan tahay oo kale iskaan ku saaro si uu u ogaado waxa saxda ah ee ku haye aad ka cabanayso marka maanta fiidiyowga waxaan kaga hadlayaa cadaadiska neerfaha ku yimaada lugta neerfahani waa neerfaha ugu dheer uguna weyn jirkeena wuxuu ka soo bilaabmaa uu ka soo baxaa qaybta dhabarka waana 5 qaybood oo ka soo baxa ricidhaha dhabarka ee saaran 5 qaybood buu ka soo baxaa marka way isku wada tagaan waxayna ay sameysmaan hal neerfe oo weyn ay sameeyaan neerfahaas oo ka soo baxa dhabarka soo aada ilaa dhabarka ka soo baxa labada lugta soo raaca ilaa iyo lugaha qaybta hoose gaadha marka wuxuuna soo maraa qaybta dambe ee barida ama salka dambe ayuu soo maraa lugaha qaybta dambe ayuu maraa saasoo lugaha u tagaa qaybta hoose ee lugaha marka cadaadis ayaa ku yimaada neerfahan mar allaale markuu cadaadis ku yimaado cadaadisku wuxuu kaga iman karaa dhabarku kaga iman karaa ricidhaha ayuu kaga iman karaa ama wuxuu kaga iman karaa muruqyada uu soo dhex maro salka oo kale ama barida oo kale ayuu wuxuu kaga iman karaa cadaadis ayaa kaga iman karaa marka waxaad dareemaysaa xanuun aad iyo aad u weyn oo xanuun aad u daran baad dareemaysaa tani maaha xanuun laakiin waa calaamad laisku arko marka aad dareento cadaadiskaas uu kugu yimaado neerfaha had iyo jeer wax raaco oo kale inuu kabuubyo timaado oo kale lugihii adimada aad kabuubyo ka dareento in aad gubasho oo kale xanuun aad ku gubayo oo kale ama in irbada laga taagtaagayo oo kale waxyaabahaas oo dhan ayaa had iyo jeer raaca oo aad la dareemaysaa mar allaale markaad xanuunka dareento xanuunkan had iyo jeer aad dareemayso neerfaha uu sababayo wuxuu had iyo jeer fiican yahay ama uu xanuun ka yaraanayaa marka aad soconayso aad lugeynayso ama marka aad jiifsato oo kale laakiin wuxuu kugu sii badanayaa oo kale marka aad fadhido ama marka aad taagan tahay xilliyadaas oo kale aad iyo aad ayuu daran yahay xanuunkan aad ka dareemayso neerfaha cadaadiska marka halkan waxaan ku hayaa iyadoo model ahaana ricidhihii oo tusaale ah si aan idinku tuso ay noqoto wax ay tusoo taabsi ah aanad u fahantaan oo haddii maalin ama waqtiyada kamid ah aad ka cabato ama aad dhakhtar la kulanto oo kuu sheego oo waxaad ka cabanayso ama waxa ku haya ama family-ga oo kale ama saaxiibka oo kale qof ay ku dhacdo si ay u fududaato inaad isula fahantaan dhakhtarkii marka halkan waxaan ku hayaa iyadoo ah tusaale ahaan ah halkan waa ricidhihii hadday jeer ricidhaha dhabarkeenu way sul saaran yihiin iminka waa laba ricidhood tusaale ahaan oo kale ricidta sare iyo tan hoose had iyo jeer laba ricidhood oo kalena waxa u dhaxeeya cushion baa u dhaxeeya ama waxa u dhaxeeya saxan ahaan oo kale kaasoo inaga caawiya in uu had iyo jeer uu nuugo ama shogo oo kale inaga caawiyo support ahaan oo kale inoo ah oo ina caawiyo marka ricid kasta wuuna ka sareeyaa wuuna ka hooseeyaa marka ricidta qaybta sare dhinac kasta waxa ka soo baxa neerfayaasha ayaa ka soo baxa had iyo jeer marka aan ka hadalay inuu 5 qaybood 5 neerfe oo ay isku yimaadaan kadib ay lugta hoose aadaan tusaale ahaan oo kale marka neerfahan koow kale 5 neerfe oo ayaa isku imanaya dabeetana waxay noqonayaan hal neerfe oo weyn ay noqonayaan oo hoos u daadiga lugaha mara marka neerfahaas haddii uu cadaadis ku yimaado ayaa sabab samaysma
in uu xanuun aad u daran aad dareento. waxyaabaha sababo oo kale waxaa ka mid ah in ay qaybtan kushinkaas ama saxankaas u dhexeeya in uu qaybta hoose ee gudaha waxaa ku jira had iyo jeer waxyaabo dareero ah oo liquid ah oo dareero ah ku jira. marka qaybtaas hoose ayaa waxaa laga yaabaa in ay noqoto ay ka soo baxdo qaybtii ay ka soo baxdo. marka ay ka soo baxdo oo waxa la dhahaa jeer herniated disc ayaa la dhahaa. marka ay ka soo baxdo su'aal ahaan oo kale iminka tan oo kale way ka soo baxday, dabeetana waxay ku samaysmaysaa mar alaale iyo marka ay ka soo baxdo in ay cadaadis ku samayso neerfihii qaybtii. su'aal ahaan oo kale halkan waxa ku haya tani waa taayada waa normal, qaybtii dareeraha ee guduhu ayuu ku jiraa. tan waa qaybtii bu'dii hoose weeye, marka normal ahaan wataa gudaha ku jirta. laakiin mar alaale marka qaybtaasi dibadda u soo baxdo, soo bixitaanka ay dibadda u soo baxdaa waxa ay ku cadaadis ku samaysmaysaa neerfihii ay ku samaysmaysaa neerfihii ay cadaadis ku samaynaysaa. waxyaabaha sababana waxaa ka mid ah in qaybtii bu'da ay dibadda u soo baxdo. waxa kale oo sababa in ay had iyo jeer laf dhabartan ay qofku markuu gababo oo kale ama xanuunka arthritis-ka oo kale uu ku dhaco, waxaa samaysmaya in laf dhabartii sabiibixa ahayd ay lafa dheeraadi ka soo baxaan, lafa dheeraadi iyo burbur dheeraadi ka soo baxo. tusaale ahaan oo kale iminka laftii toosnayd waxaa ka soo baxday qayb ayaa ka soo baxday oo buuran, waa tan buuritaankaas ah. dabeetana buuritaanka lafta dheeraadka ah marka ay ka soo baxdo neerfihii ayay cadaadis ku qabanaysaa, neerfihii ayay cadaadis ku qabanaysaa. sidaa daraaddeed ayaa waxa uu qofku dareemayaa in uu neerfihii cadaadis ku yimaado. waxyaabaha kale oo yimaada waxa weeye arthritis-kaas ama in uu yimaado hooga ay ka soo baxaan neerfayaashu inay isku yaraadaan oo ay cadaadis ku yimaado, cadaadis ku yimaado. ama in uu neerfaha gudaha ama markuu qaybta salka soo marayo oo kale muruqyada qaybta barida oo kale ayaa neerfo ka soo dhex baxaa. mar alaale markuu neerfo ka soo dhex baxayo cadaadis ayaa iyaduna ku sababaysa. hadduu muruqaasi qalafsanaado ayadana wuxuu sababayaa in uu ka sababo cadaadis. waxyaabaha kale oo iyaduna aad u sababa waxa weeye haddii uu ku yimaado jabitaan oo kale, qayb ka mid ah ay laf dhabartaadu jabto, dabeetana labadii lafood ee sidaa tooska isu saarnaa ay kala horu maraan oo ay qaybina gudaha gasho qaybina dibadda soo baxdo. marka isku dheelitirnaantii iyo balansigii ayaa lumaya. dabeetana marka laf dhabartii qaybi gudaha gasho, in yaroo hadduu jabitaan yimaado gudaha gasho, qaybna hore u soo baxdo, neerfiha ayaa iyadana waxaa ku imanaya cadaadis. marka waxyaabahaasi waa waxyaabaha ugu badan ee sababa cadaadiska neerfaha iyo cadaadiska ku yimaada neerfaha. iyo calaamadaha ugu badanna waa calaamadaha marka aad dareemayso xanuun, aad dareemayso gubitaan oo kale, kawbiyo oo kale. had iyo jeerna waxay aad ugu badan yihiin oo kale marka dhabarka wax aad ka noqoto. haddaba markeebaad u baahan tahay in qaliin lagu sameeyo, markeebaad se u baahan tahay in nasasho iyo dawooyin xanuun baabiya ama caabuqa hoos u dhiga iyo physiotherapy ama jimicsi lagu sameeyo. markeebaad se u baahan tahay qaliin. had iyo jeer waxa aad qaliin u baahan tahay marka aad ka dareento xanuunkan, aad dareento uu xanuunkaas uu joogto yahay, xanuun joogto ah, waqti badanna uu ku hayo, iyo in uu kaa saameeyo shaqadii oo kale ama socodkii oo kale, ama inaad lugihii dhaqdhaqaajiso. waxyaabahaas oo dhan haddii uu kaa saameeyo waxaad u baahan tahay marka hore in jimicsi lagu dayo. shaqadii uu kaa saameeyo, xanuun joogto ah, marka aanad ka shaqayn karayn, aanad ka socon karayn, waxa muhiim ah qaliin ayaad u baahan tahay. marka waxaa laba nooc waxaa la sameeyaa. in qaliinka aad la sameeyaa oo kale waa qaliin yar oo saacad ama saacadii bar buu qaataa. in haddii qaybtii bu'da ee soo baxday wixii soo baxay tan oo kale cadaadis baa ay ku haysaa neerfihii, in qaybtaas cadaadis ku haya laga jaro, ama in qaybtan lafta ayadana in yar laga jaro si uu neerfihii cadaadiskii ku yimaaday uu nafis u helo.
mar alaale markuu neerfaha cadaadiska ku yimaaday nafis helo waxa ka baaba'aya xanuunkii dhammaan ahaanba. mar haddii uu qofku leeyahay xanuun joogto ah, baaritaankii physical examinationkii lagu sameeyena ay noqoto positive in uu neerfuhu cadaadis ku hayo, iskaan oo kale lagu saaro, la ogaado ciladu halka ay tahay. ciladu ma muruqa mise waxa weeye laf dhabarta meesha ay kugu samaysaa cadaadiska. markaas oo kale qaliinku waxa aad u fiican yahay marka la isbarbar dhigo qaliinka lagu sameynayo iyo marka lagu sameynayo jimicsi iyo in la baxnaaniyo. waayo qaliinku inaad xanuunkii ka bogsato recovery ka samayso aad iyo aad buu u dhaqso badan yahay. xanuunkii oo markiiba ka baaba'aya xaggii shaqada iyo xaggii ku qanacsanaanta oo kale aad iyo aad bay uga fiican tahay marka loo eego baxnaanada iyo jimicsiga loo sameeyo keligii. marka fiidiyogan qaybtiisa labaad ayaan waxaan kaga hadlaynaa hadduu ilaahay ka dhigo jimicsiyada loo sameeyo marka aad dareento xanuunkaas cadaadiska neerfaha kugu yimaada. jimicsi noocyaa la sameeyaa iyo kuwa la iska ilaalinayo iyo kuwa la sameynayo. marka daawade la soco qaybta labaad ee fiidiyogan. aad iyo aadna u mahadsantihiin waana iyo kulanti dambe.